iftiimiyo waxa ogeydeen ayaamihii ugu dambeeyay muddaba imaka inaanu saddexda xusbi labada xusbi mucaarad iyo saddexda xusbi qaran inaan wada hadal noo socdeen wada hadalladaas oo ahaa la xiriira sidii doorashooyinkii golaha deegaanka iyo baarlamaanku ay noogu dhici lahaayeen meel wanaagsan baan isla soo gaadhnay waa wada hadlaynay 7 qodob baanu dhiganay sidii ay u sheegeen iyaguba labada xisbi mucaarid 7 qodob ee aanu ku wada oo 7 qodob la xiriiraan doorashadu sidii ay u dhici lahayd labadii qodob ee ugu horeeyay oo ah komishanka in la kala diro oo uu xisbiga wadani soo jeediyay horena jawaabtiisa aanu bixinay ayaan doonayaa mar labaad inaan ku celiyo kala dirista komishanka qaranka maanu aqbalin waxaanu aaminsanahay haddaanu nahay xisbiga kulmiye dad badan oo adduunka ama shacabka reer Soomaaliland nooga marxaati furayaan doorasho ka dhacda Soomaaliland doorashadii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd inay noo qabteen komishankanu oo abaalmarin mutaysteen ka mutaysteen shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiyada qarankaba taa halkaasaan ku daynay kumaanu afkaranin iyaguna halkii bay taagan yihiin qodobka labaad ee soo raaca waxa weeyaan qodob xisbiga uu soo jeediyay oo ah tiraha lagu daro qodobkaasuna xeer buu gelayaa baanu nidhi hore aan kulmiye iyo ucud way u soo jeediyeen qodobka berigaanu mucaaridka ahayn qodobkaasna waxaan ku noqday sida aanu maantadan laftigeeda sheegayno sharciyadu dib ugu noqday qofka doonaya marka la doonayo in tirada la kordhiyo xeer baa qeexaya komishanka qaranku intuu noqonayo waa 7 haddii xeerka la doonayo wax laga bedelo soo jeedin ka timaada xisbiyada iyo baarlamaanka oo loo gudbiyo oo ama ay xisbiyadu saddexda xisbi waxay ka kooban yihiin baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay saddexda xisbi qaran sida xeerkeena ku taala ama dastuurkeenaba in halka looga jeediyo baarlamaanku baan soo bedeli kara tirada ku kordhin kara wax ama wax ka dhibin kara taana waxaan nidhi markeeda iyo waqtigeeda hal la gaaro waa dood furan oo laga doodi karo oo maxaa looga doodayaa ma lihin laakiin waqtigeeda hal la gaaro baan nidhi waxaanu cadaynaynaa maanta doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka oo foodo inagu soo haysa haddaanu nahay xisbiga kulmiye inaanu diyaar u nahay inay dhacdo waqtigeedii haddii ay dib uga dhacaysana waqti yar walow imka muddo fara badan inaga tagtay yar oo 2 bilood ama bil inay dib uga dhacdo oo ay waqtigeedii inoogu qabsoonto doorashadu shacabkeena u baahan dimuqraadiyadda inay hore inoogu socoto oo ay dhacdo doorashooyinka isbedelkii muddo fara badan muddo dhaafka labada goloba ay muddo dhaafka yihiin waxaanu ka codsanaynaa walaalaha iyaga xisbiyada mucaaridka inay nagala shaqeeyaan sidii ay doorashooyinkaasi inoogu dhici lahayd xukuumadda iyo xisbiga xaakimka waajibaad baa saaran waajibaadka saaran waxa weeyaan inay diyaar gareeyaan adduunkii ku bixi lahaa doorashooyinka iyo saaxadii lagu qaban lahaa doorashada inay diyaar gareeyaan labadiiba waa ka diyaar waxa ogeydeen intii ugu horeysay ee doorashada lagu qaban lahaa inay xukuumaddu bixisay oo komishanka u gudbisay haddaan dib ugu noqdo komishanka muddadiisii waxa u hadhay muddo sanad iyo dheeraada inta doorashada wayna ugu qaban karaan mar labaad waxaan ku celinayaa wada hadalladii noo socday kama xidhmin dhinacayaga dhinacoodana kama xidhmin ballantu waxa ay noo ahayd in aanu wiiga dambe isu nimaadno maalintii dhawataan wada fadhinay gogashiina sidii bay u taalaa oo xisbiga kulmiye fidiyay waananu soo dhaweynaynaa fikirkoodana waanu ku ixtiraamaynaa
iyaguna inay kaayaga nagu ixtiraamaan baanu ka rajaynanaa insha allahu intaan idinku yeedhay maanta waa intaa aan hadalka dhameeyo intaan idinku yeedhay waa intaa shir jaraa'id bay ahayd oo aan qabanayay wixii su'aala markale isweydiin karnaa